السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلامي دمان شعبka Soomaaliyeed meel walba joogtaan waa mar kale iyo waanadii shacabkayga Soomaaliyeed aan waaninayo walaalayaal saaxiibayaal waxaan rabaa maanta inaan sida kaaladu ay kugu fikirtay inaan wax kaaga sheegayo walaalayaal hay-adahan dadka samafalayaasha la leeyahay ee hay-adaha adduunka ka jira sida ay dadka u caawiyaan iyo sida ayaga ay dadka ay caawinayaan waxa ay siinayaan sida ay maaragtay ee u keenaan waxaan ku leeyahay horta ninkaasi wuxuu ku fekeray nin maaragtay adiga wax tan ku wax maaha tanta uu kaa leeyahay ayaa ka weyn badan ayaguna waxaan jeebkooda wax ka dhibaynin ayay iska soo aruuriyaan laamiyada waaweyn intay istaagaan ay shacabka laamiyada iyo meelaha bablika maraya oo waddooyinka waaweyn maraya ayay toban senti nus dollar hal dollar ayay ka qaadaan waxayna ugu talagaleen in adiga ay ku siiyaan oo aadan waxba qabsan qofka Soomaaliga inuusan wax qabsan ayay ugu talagaleen 10 senti taasoo ama intaasoo milyana oo hal dollar ama nus dollar laga qaaday oo jeebkooda aan waxba ka dhibayn laakiin tanta ay ka leeyihiin ka weyn tahay ayaa Soomaaliya loo keenaa Soomaaliya dhalinyaro iyo ganacsato waaweyn baad leedihiin sida ninka gaalka u fakeray maxaad u fakeri weydeen oo gacantiina iyo dhididkiina maxaad ugu noolaalaadiin dhididkaaga kuma noolid maskaxdaada kuma noolid taladaada kuma meel martid talada qofka kalena kuma meel martid laakiin nin gaala ee beejada ku taalla ayaa taladiisa ku meescaad ku socotaa waxaana idin sheegayaa haddii aad ganacsato leedihiin iyo haddaad dad maaragtay 10 senti ka go'o waa inaad aruursataan ood maaragtay akoon u samaysataan waa ammaanka qofka muslimka ee wax ammaanadana inaad nooleysaan horta ammaanada ka dhibateen ammaanada nooleeya ganacsatada Soomaaliyeed hadday bishii hal dollar wax ka dhibi may bil kasta hal dollar wax ka dhibi mayso laakiin waa inay 500 oo qof oo ganacsata oo 500 hal dollar waa 500 dollar 500 dollar hadday ku sameeyaan ay aruuriyaan ay beeraleyda ay ku maalgeliyaan biri 500 dollar waxaa uga soo laabanayso inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyeen ee dhalinyaradii shaqo geliyeen in beeraleydii ay moorarkoodii iyo maskaxdooda dhisaan oo maaragtay wax soo saarka waddankooda ay intifaacsadaan maadaama waddanka bur dhacay iyo raashin dhacay iyo kontarool la'aan wax lagu soo gelinayo mooraalka waxaa u dhismaya beeraleydii ganacsatada waxay dhalinyarada maaragtay hubka wadato oo isdilayso oo waxay isku dilayaan aanan garanayn hubka intay iska dhigaan shaqada beeraha soo aadayaan ma fahanteen waxaa kaloo ku sheegayaa 500 oo qof oo ganacsato oo halka dollar bishii meel dhigato waa 500 dollar 500 dollar waxaad ku dhufataa 12 bilood waxay keenaysaa 6,000 dollar 6,000 hadday sameeyaan 5 nin oo beeraley ay beertooda ay sanadka ka kireystaan sanad kastaba hadday yiraahdaan beertaan iga kireyso sanadkaasna intaasan ku siinaa oo had ganacsi beeraleyda waddanka hadda ka soo haajirtay haddii la yiraahdo hektarkii hal sano kaa kireysan tahay waxaan ku siinaa 200 300 waa ogolaanayaan haddii asaga ninka iska lahay beerta haddana asaga shaqaale ka dhigto oo asagana bishii wax siidana wuu ogolaanaya si fiican waxaa kaloo ku sheegayaa shidaalka haddii aad 6,000 ka bixiso lacag miyaan maxaa faa'iidada qabta bal sheeg
intee la kaa kartaa faa'iidada haddii halkii hektar intaasoo looro raashina laga soo kuro intaasoo looro maaragtay raashina markii laga soo kurana aad raashinkii suuqa keentay aad ka goydo lacagtii aad shidaalka ka bixisay oo lacagtii aad ka goydo oo wax kasta kale aad ka goydo faa'iido raashina sooma oolaanayso caqligiina ka shaqaysiiya talada ummadda qaata dad aaminaha meesha ka dhintay aaminka la soo celiya haddii aaminka la waayana muxuu ahaa ganacsatada laftigeeda ha ku tartanto 500 oo ganacsataa suuq kastay joogaanba 500 u taagan inay bishii halka doolar bil ku ridaan wallaahi aniguna waa fiicnaan lahay aad iyo moralkeenan wuu dhisnaan lahaa ummaddan aan qabiilka isku dilaysana shaqaa wada heli lahaayeen raashinka qof baa soo xamaalaya qof baa magaalada keenaya qof baa maaragtay baabuur baa u shaqa tegayo raashinkii soo daldalaya shaqaale miyaa dadkii o dhan miyayna wada shaqaynin dadka la mashquuliyo ummadda hadda dadka ka naxaysiin ganacsatada hadda dadka ka naxaysiin dadka u shaqeeya ayaguna shaqo siiya oo badbaadiya oo naftooda badbaadiya maxaa yeelay ninkan gaalka oo adigu ku fekeraba 10 senti iyo halkaa doolar iyo suuqaas inta dhex istaago oo dhar loogu tala kale intay xirtaan oo jaakada xirtaan ay leeyihiin maxaa u awoodaa maxaa ku ridi kartaa sanduuqan maxaa ku yeeli kartaa adiguna waa ku naafeenayaan waa ku ciyaarayaaminayaan moralkaaga jebinhayaan maskaxdaada ku ciyaarahayaan tan diinana garanaysaan inaad aan qabiil isku tishaan iyo anaa reer qansaxa iyo anaa reer quraca waddankeena laga joojiyo dadku waa Soomaali calankeenana waa buluug Soomaali baynu nahay